ahayd wasiirkeena qaaliga ah wasiir Khadiija Maxamed Diiriye kelmad kooban bay oranaysaa waxayna ku soo dhaweyn doontaa gudoomiyaha guddiga wasiir Dube oo kelmadii rasmiga ahayd ee guddiga jeedin doona soo dhaw wasiir الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو قدوميها كسمها قدوميها قلاء الشعب كان برلمان جمهورية فدرالك الصومالية اهنا gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane cabdiwali ibraahim sheekh muudey ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane injineer maxamed xuseen rooble gudoomiyaha maxkamadda sare mudane baasho yuusuf madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ariirkan wadaagkan walaalkan madaxweynihii kan mudane Cabdicasiis Maxamed Axmed Cabdicasiis Maxamed Xasan garaadka lafta gareen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho مدني عمر محمود محمد فيليش القال والد guddiga qaran ee sare ee qabanqaabada xuska munaasabadaha maalmaha xorriyadda xubnaha golaha wasiirada ama golaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xubnaha ka socda labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya golaha shacabka iyo aqalka sare dhammaan taliyaasha ciidamada qalabka sida saraakiisha iyo saraakiil xigeenada halkan ku sugan maamulka iyo ku-xigeenada gobolka Banaadir gaar ahaan gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir dhalinyarada ururada madaxdooda siyaasiyiinta labeenta madaxdii hore ee dalka ee halkan ku sugan halyeeyadii qaranka ciyaartooydii hore ee Soomaaliya qurba joogta rag iyo haween iskugu jira halkan jooga hoobalada qaranka waa bari iyo kooxda kale ee ku lamaansan ee kaalmooy wasiir Dube waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa fanaanadeena martida inoo ah oo aan caawa halkan ku arkay inay marti u tahay wasiirka warfaafinta oo ay hoobalada qaranka hoos tagaan dhammaan ciidamadii qalabka siday kooxdii salaanta ee calanka u taagneyd markii uu madaxweynaha la gaaray xilligii 6 saac halkan jooga marti sharafta kale yar iyo weyn mudanayaal iyo marweyn السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برسماتكو إلا وابدين مركز توقف ضد برسمات كجرة أنا قابر برارني كجرنا صومه دالك جودهان أيال لقى حسيا معلما حرية ده جبني ماذا ماذا حبناني ده بس ده وتقان ماذا ماذا حوينه رئيس الوزراء حكومة ده ayaa soo magacaabay guddigan oo noo sheegay in maalmahaas ka soo dhalaalno waxaan ugu horeyn leeyahay waxaan maqli jiray waxana habeenkani hees la dhaho waqalkani udgoona kuma luqayn karo laakiin habeenba habeen ka wacan micnihiin sidaasaan ka wada mudane madaxweyne
muddadii xilka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya lagu igmaday waxaan ka soo qayb galnay munaasabado badan oo shakhsiyan aan ka mid ahaa guddigii qabanqaabada waxaan qirayaa in ra-iisul wasaarahan xilliga uu yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble guddoomiyaha guddiga sare ee qabanqaabadana uu yahay mudane wasiir ka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska cismaan dubbe sidaas daraaddeed habeenba habeenka wacan xukuumad ka wacan guddiba ka wacan warkaa intaa ku dhan faahfaahintiisa geli maayo waayo halkan sidii hore sanadka hore miya ahayd indhaha markhaatiya magaalada muqdisho sidii sanadka hore loogama dabaaldegin gobolka banaadirna saasaa looga dabaaldegay tan iyo maalintiina la magacaabay dhowr iyo 10 cisho oo hawshan soo socotay yar iyo weyn caruur dhalinyaro iyo haween marka intaasaa laga gartaa faqaamada ra'iis marka waxaan ku leenahay intaasoo ku baaltaagan bahalku uma soo dhacayo noolow madaxweyne mahadsanid ra-iisul wasaare adaana siiyey fursaddan guddoomiyaha faahfaahin doona oo si fiican noogu qaybiya 4 guddi oo hawshan soo wada qabatay gaar ahaan guddigii habmaamuuska oo aan halkan ku sugannahay dadkii gaarka ahaa oo aan u soo gudbinay guddoomiyaha iyo xafiiskiisa xitaa garabayna siiyeen dhalinyaro badan oo hiwaayado hal abuur le samaystaa garabna siiyey intaaba guddoomiyahan u dhaafayaa iyo guddiyada kale howlihii ay soo qabteen wabilaahi towfiiq alf mabruuk hambalyo aad iyo aad ayay umahadsan tahay wasiir khadiijo maxamed diiriye markana waxaan ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha guddiga qabanqaabada munaasabadaha qaran wasiirka warfaafinta mudane profesor cismaan dube بسم الله عاوة واللحية 20 جون لحدن يكون قوردي كسوريكتي مالنتي على الصوماليات وحرة لقتاقو عيد صوماليات همباليو وحنكون بالعبايا سلامتا وحنكون بالعبايا مدحوينات جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماتو سلام مدحوينه waxaan ku xijinayaa gudoomiyaha gudoomiyaha golaha shacabka isla markaana gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey waxaan ku xijinayaa ra'iisul wasaarahayga Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda sare ana hogaamiyaha qaybta garsoorka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Baashe Yuusuf Axmed sagana aad salaamaya waxaa caawa martiyan oo ah oo munaasabadda jooga madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen وسلامة مدحوينها واسمه مدحوينها كلا قدوميها قبل كا عمر محمود محمد عمر فيلش ماملك قبل كبنادر 4 مليون oo Soomaaliyeed ayuu maamulaa isagana waan salaamaya salaan kadib waxaan rabaa oo kale inaan u mahad celiyo shacabka Soomaaliyeed aqoon-yahanka siyaasiyiinta xubnaha golaha wasiirada xubnaha labada aqal
aqoon-yahanka madaxdii hore qaranka oo aan salaanta ka soo bilaabay dalkan u soo shaqeeyey aad baan iyagana wada salaamayaa kooxda waa beri iyo fanaaniinta kale ee aanu dibadda ka keennay oo qaarkood iyaguna inoo kowda luuliyo ay ku qoran yihiin oo ay kowda luuliyana madadaalin doonaan iyagana aad iyo aad baan u salaamayaa bahda warbaahinta oo ilaa iyo galabta taagnaa waa salaamaya ciidamada qalabka sida ee sugaya amniga aad iyo aad baan u salaamaya qaybahooda kala duwan saraakiishooda saraakiil xigeenadooda alifleydooda dableydooda xaasaskooda caruurtooda hambaliyo iyagana waxaan u mahad celinayaa guddidii qabanqaabada oo runtii shaqo weyn qabtay shaqo aada u la yaable bay qabteen habeen iyo maalin way shaqaynayeen afartii guddi afartii hogaamiye ee kala hogaaminayey hadda khadiijo maxamed diiriye aragteen wasiir cabdilqaadir maxamed nuur baa isaguna hogaaminayay guddiga bilicda iyo guddoomiye basma waxaa hogaaminayay shukri maxamuud afrax iyo cabdirashiid waa runtii guddiyadu aad iyo aad bay u shaqeeyeen guddiga amniga shaqo weyn bay iyaguna qabteen aad baan u salaamaya wasiir xasan xaaji wuu jooga waxaan xafladani la-aanteed aanay qabsoonteen shirkadda qurxisay bishay bilicdan samaysay ee beelakuwiin sacab ha loo tumo beelakuwiin la-aanteed quruxdan iyo jawigan ma aynaan heleen iyo farsamo yaqaanka ayuub iyo tiimkiisa iyagana waa salaamaya brotokoolada madaxtooyada oo ugu horeeya jiif cadaani iyo brotokoolka ra-iisul wasaaraha sabriye iyaguna shaqada ay qabteen waa ku hambaliyeyna intaa kadib mudane madaxweyne waxaan rabaa inaan laba kelmadood ka xuso habeenkan taariikhiga ah ee 26 Juun runtii gobonnimadu waa geed ku baxa dhiigga geesiga waxay ku timi dadaal halgan nafhur iyo keenadiidnimo ay sameeyeen muwaadiniin dalkooda iyo dadkooda jeclaaday kana jeclaaday inay isu dhiibaan gumaysiga ayay ku timi laakiin waxaan doonayaa dhallinyarada soomaaliyeed ee caawa malaayiinka ah ee ina daawanaya inaan halkan fariin yar uga diro kolley khudbadda madaxweyne ay ku jirtaa taariikhdu laakiin madaxweyne waxaan rabaa inaan xusuusiyo macnaha ay maalintani leedahay waxa ay leedahay gumaysi inagu gumaysi ma naqaan jiilashii inaga horreeyey oo ay inagala joogaan soo jireennada halkan caawa fadhiya xerbeegtida waxay garanayaan xanuunka uu gumaysigu leeyahay innagoo keliyana ma ahayne afrika oo dhan ayuu ku ahaa masiibo loo soo diray 1884 ayay yurubiyanku intay baarliin fadhiisteen ayay afrika sidii keegga ama doolshada u qaybsadeen qoloba meel bay qaadatay go-aankoodiina waxay u fuliyeen si arxan darre ah dalka kongo la yidhaahdo 15 milyuun ayaa biljam ku dilay dalka south africa dalkiiba inta la qaatay ayaa waxaa loo diiday qof madow inuu xafiis galo ama tareen raaco ama guri dhisto ama noolaado oo la yidhi adigu waxaad tahay xaquma lihid inaad xataa meel wax laga cuno soo gasho waddamada aada loo baabi'iyey ee gumaysigu cagta mariyey waxaa ka mid ah algeria 1 milyan oo qof baa faransiisku ku dileen waxaa ka mid ah namibiya oo bishan uun jarmalku oggolaadeen ummaddan ay xaaqeen ummaddan oo reer namibiya baan qofba laga hayn oo inta la xareeyey gaajo loo laayay soomaalidu waxay ka mid ahaayeen dadkii gumaysigu dhibay kumanaan iyo kumanaan iyo kumanaan qof ayaa ku maqan gacanta gumaysiga nin cali dhuux la yidhaahdaa wuxuu arkay dadkii oo la laayey markii daraawiishi kacday qabiilkii intaa degi jiraan quri ka noolaynabi caawana qudhaydiyo cabdoo qaawan baa haray yacni waa xasuuq wixii ka dhacay kilaasayle
wixii ka dhacay la foole lafaha loogu magac daray wixii ka dhacay dunida iyo Soomaalida waynu ognahay runtii lama soo koobi karo halganka iyo xanuunkaas ay gobonimadu ka dhalatay wax kalena ma ahayna wuxuu raahaa qof ama ka yimid Talyaaniga ama Faransiiska ama Ingiriiska ama Addis Ababa oo la dhulka anigu aan xukumo dadkana anigu aan yeesho konsabka gumaysigu waa ka ujeedadiisuna wax kale maaha waa dunida qofka xoogga weyn wuxuu jecel yahay qofka itaalka daran inuu qaato adoonsado yeesho intaa weeye waa sida jirka bini aadamka imiyuunkaagu hadduu dabco ama difaacaagu waxaa ku qabsanaya hargabkaa ku dilaya ummadaha daciifka ahina waa sida waana waxaan rabno inaan bedelno inaynaan dib u noqonin daciif mar kasta oo aynu daciifno waa mar kasta oo layna farageliyo runtii waxaan madaxweyne dhalinyarada xusuusinayaa intaa sida keliya ee lagaga badbaadi karo gumaysiga dadban ama gumaysiga tooska ama faragelintuna waa qaranka oo quwad yeesha isku tiirsanaada midooba adkaada sida unugyada cadcad ee jirku ay kaarayaal iyo diyaarado u yihiin qarankeenuna diyaarado iyo kaarayaal uu dalka ku difaaca u yeesha waxaan ku soo gabagabaynayaa farxaddii habeenkaas calanka laga taagay Hargeysa ayaynu habeenkeedii caawa joognaa suugaanyahanadii habeenkaa ka maahmaahay way ilmeynayeen way qiiraysnaayeen waxay u qiiraysnaayeen calanka iyo madax bannaanida waxaan ku xusi karaa cabdi iidaan markuu ka yaabay calankii jacaylkiisii iyo udgoonkiisii wuxuu yidhi albaabkii kabcadan kugu masalay agabkii saarayd kabcada marada saarane udgoon buu ku masalay cabdi iidaan calanka ismaaciil xaleef wuxuu ku masalay wuxuu yidhi ciidamo malaykaa siday oo ciidda soo dhigay in malaa'igiba inoo keentay buu ka dhigay cabdilaahi suldaan timcadane wuxuu yidhi balaan maruun arka baalkee sarreeyow ma nuqsaamow bal siduu yahay aneegne kaana siib ka nasaar absolute cali xuseenna wuxuu yidhi habeenkii kowdii luuliyo cali xuseen xirsi makaadsade kor u eeg buluugley rag baa oogadaa sudhay kor u eeg buluugley rag baa oogadaa sudhay halgankaas iyo nafhurkaa iyo taariikhdaasuu leeyahay oo aynu caawa ku dabaaldegaynaa laakiin gobonnimadu waxay u baahan tahay hanasho sida lagu hanan karaana waxa weeye isku tiirsanaan midnimo hoggaan iyo aragti fog oo qarannimo intaaba maanta waynu haynaa cirkuna waa hunkodaya roob iyo barwaaqana way soo socotaa wasiirkii batroolkuna waa joogaa sheekhaalow jannaa soo socota aynu u dabaaldegno aad iyo aad baa u mahadsantihiin intaasaanu shaqadayadii ku soo gebagabaynay diyaarna waanu nahay kowda luuliyana inaanu sidan iyo si kasii qurux badan caawana magaalooyinka dalkao dhan waa laga dabaaldegayaa gaar ahaan caasimadda siduu cabdirashiid sheegay dhallinyaradii ilaa hadda way joogaan way dabaaldegayaan way faraxsan yihiin soo wax kalena maaha guddida qabanqaabadu waxay ka shaqaynayeen wacyigelinta iyo baraarujinta iyo noolaynta ruuxiyadda wadaniga ah ee ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad baan idiin salaamayaa aweys wanaagsan xorriyad wanaagsan madax bannaani guul iyo gobonnimo aad ayuu mahadsan yahay gudoomiyaha guddiga isla markaana wasiirka warfaafinta mudane professor Cusmaan Dube iminkana aan u yeedho kusimaha gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdiwali Ibraahim Muudey si uu ugu soo dhaweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aniga waxaa la iigu yeeray inaan madaxweynaha soo dhaweey laakiin madaxweynaha intaan soo dhoweynin ka hor dhammaantiin waa salaamantihiin magac kasta ood ku fadhidaan qof ma sheegi kari aniga intaas kadib caawa waxaan u joogno waa xaflad
oo qiimo badan oo laga hadlay taariikhdeeda iyo wixii la soo maray. taas intaasay noogu filan tahay, laakiin maxaa loo baahan yahay? taariikhdaas laga soo hadlay iskama imaanine waa la keeno, rag iyo gabdhaa keena. maxaa annagana looga baahan yahay? waa og tihiin waxa la soo maray, qarankan uu soo maray. qof kastoo inta fadhiyo, kii wax akhrinayana waa arkay, kii wax dhegaysanayana waa maqlay waxa la soo maray. waa og tihiin qarannimadan loo soo halgamay oo intaas soo martay, heerka aan gaarnay waxay ahayd Afrika dowlado badan inaan annaga xoreynay. waa og tihiin, waa lagu faani karaa oo wax aan ku faani karno. dowlado ugu waaweyn maanta Afrika qaybta annaga aan ka qaadanay oo aan xoreynay waa la socotaan. iskama imaanin, dadaa keenay, fikiraa keenay, maskaxa keentay. looma baahno caatifad, qabiil. waxa meeshana dhigay waaye hadda aan joogno 30 sano iyo dheeraadaan joognaa. maxaa laga faa'iiday qabiil? yaa noo sheegi karo waxaan ka faa'iiday? gobonnimadii aan inta ogaanta loo soo dagaalamay oo Afrika iyo waddamo badan aan ku xureynay, maanta meeshanaan joognaa. sabab annagaa u qayb annaga ka mid ah ka shaqaysa. gumaysay la shaqayn jireen. sidaas ayaan ku naqanay inaan ku dugno. taasaa keentay. waxaan rabaa inaan hal mid idin xasuusiyo. dhibaato kasta oo Soomaaliya ku timaado, mid hore ha ahaato ama mid hadda joogtee, dad Soomaali ah ku lug leh oo calooshood u shaqaystayaal ah. xaqiiq waaye, waana ognahay, waana soo aragnay. waxaa loo baahan yahay maanta meesha aan joogno iyo quruxda aad leedihiin iyo dowladnimada iyo fadhiga aad fadhidaan iyo karaamada waa u jeedeen. iskama imaanin. ma horaan u wadnaa mise gadaalaan u celinaa? war bal gacanta taaga, gacanta la taago. hore ha loo socdo, hore in loo socdaa la rabo. hore aan u soconno. dadkii keenay maanta, dadkaas Soomaalinimo waa laga aqoon badnaa, laakiin maxay lahaayeen? qalbi iyo niyad. qalbi iyo niyaday haayeen. hantina adinkaa ka badan, aqoon adinkaa ka badan, laakiin Soomaaliya lahayn dun wanaagsan ay ahayn. laaluush qaatiyaal ma ahayn. laaluush qaatiyaal ma ahayn. xoolahooday gadanaya, gabdhahana dahabkooday dhiibi jireen. iskama imaanin. marka tan maxaa loo baahan yahay maanta? khudbada madaxweynaha iskale, asaga nooga sheekeen doono, tan noo warrami doono. waxaan rabaa, ana warkii waa soo koobaya, madaxweynaha siina meeshaasaan rabnaa caawa in wax noo sheego. hal arrin aan kusoo gebagabayna. 15 May meeshaan xafladan u joognay. madaxweynaha aniga asaga wax baan ku ballannay inaan xasuusiyaan rabaa. waxaan ku ballannay inuu macallin ii naqdaan ku ballannay. madaxweynaha waa iga mashquulayaan u malaynaa. macallin inuu ii naqdo oo YouTube-ku ii baryaan ku ballannay. marka madaxweyne waa iga mashquulshaan ku sameeyna u malaynaa. YouTube-kii macallinkaad iigu naqdaan waa kaa soo dhawaa. ku soo dhawaa madaxweyne, waa mahadsantahay. waa mahadsantahay ninkan. نفرسية مرك نفرسية. بسم الله الرحمن الرحيم. هبين وناكسن كسمها قدوميها قولها شعبك أهنا قدوميها كواد قولها شعبك هزارها حكومة دولة فدرالك gudoomiyaha maxkamadda sare
madaxweynaha dowlad goboleedka ee koonfur galbeed, golaha wasiirada xukuumadda, guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho, xildhibaanada labada aqal ee sharafta leh, taliyaasha ciidanka qalabka sida iyo sarreeyaasha, saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo dableyda, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, gobolada kooxda Waaberi oo ah hooyada fanka, bambeyda iyo kooxda salaanta sharafta, bahda saxaafadda, marti sharafta kale oo caawa kulankaa nagala soo qayb gashay, dhalinyarada taagan ama fadhiya oo gaaraya la yidhi 500 daljir ka dahsoon, dadweynaha nagala socda tiiviyada iyo idaacadaha, kulli waxaan ku salaama assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ilaahay baa mahad leh oo caawa halkan munaasabadan isugu kaay keenay. waan u dabaaldegayno xuskii sanad guuradii 61aad ee ka soo wareegtay 26 Juun 1960 oo ah markii gobolada waqooyi ay ka xoroobeen heeryadii gumaysiga iska qaadeen. waxaan u mahad celinayaa guddiga qaranka oo noo soo qabanqaabiye caawa iyo wiiga usbuuca xorriyadda oo sidaan qurxoon noogu soo qabanqaabiyey xafladdan quruxda badan. gobolada Waaberi aan u mahad celin kale aan siiyo heesaha wadaniga ah ee caawa halkan ku soo bandhigeen. Waaberi waa soo noqotay siday u muuqato. abwaan shube aad iyo aad yuu xaqiiqdii u mahadsan yahay. hal kaftan aan ku daro, abwaan shube caawa si fiican buu u cayaaray, marka waxaan la yaabanaa siduu isu balance gareeyey markuu cayaarayay. cayaar qurxoon bay ahayd oo qoobka cayaara weliba. waxaan kale oo ishayda qabatay Khadiijo wasiiradda oo caawa afka soo xiratay markii la yiri koronihii dadka kulli afka waa wada furteen. waxaan xasuustaa goboladii Nakruuma markay xanuunsatay oo cisbitaal Martiina ay ku jirtay iyo Khadiijo ku noqonaysay, markaas afka uma xirnayn. maray intii waxay tiri cisbitaal Martiina ka yimid, waxaan ku yiri yaa ku soo galiyay meeshaan horta adoo afkaaga furan yahay. waxay tiri cirbaddaan sugaya, cirbaddii way qaadatay, weli afkaa u xiran hadda. markii koronaha cirka marayna afkaa u furnaa. marka waxaan weydiinayaa sababtii afka u xirata caawa. waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan caawa inaan u hambaliyeeyo. caawa waa habeen wanaagsan, waa habeen farxad aad iyo aad u leh noo ah. maxaa yeelay waa 26 Juun oo aan nagu xorriyadda qaadanay 1 July. xaqiiqatiin waxa weeye 1960 26 Juun waxay noo ahayd habeen taariikh leh oo ummadda Soomaaliyeed ay aad isugu soo baxeen beertii xorriyadda ee magaalada Hargeysa, lagana taagay ama laga suray calankii Soomaaliyeed oo ahayd markii ugu horreysay ciid Soomaaliyeed laga taagay. waxaa xusid mudan, waxay ahayd habeen u baahan inaan dib u fiirino. waxyaabahan ka xasuusano waxaa ka mid ahaa abwaankii Allah u naxariisto oo hadda Dubbe uu noo sheegay gabaygii yaraa uu ka tiriyey goobtaas ee ahaa
cabdulaahi suldaan timcadde allaha jannadiisii naxariistiisa siiyo isagoo qiiraysan oo xamaasad badan ay hayso yuu wuxuu tiriyey tix gabay ah xoogaa yar yuu ka taabtay bal anna xoogaa yaraan ku daro wuxuu yidhi saaxirkii kala guurnay sarreeyo ma nusqaamo aan siduu yahay eegne kaana siib kana saar waxay noqotay tix taariikhda soomaaliyeed baal dahab ka gashay oo mar walba oo aan xorriyadda u dabaaldegayno ay tahay inaan soo xasuusanno waxay ahayd habeen qiiro badan oo qaali ummadda soomaaliyeed ku ah oo qiimo leh oo farxad badan wadatay shacabka soomaaliyeed meel kasta ha joogaane shucuurtoodii iyo xamaasadoodii iyo dareenkoodii soomaalinimo ee wadaniyad xakameyn waayeen waxay ahayd habeenkaas habeen farxad badan waxaa ka horeeyey habeenno badan oo Israel iyo horseedkii leegada ay soo mareen dhibaatooyin badan ay hooyan waayeen dhibaatooyin culus ay soo mareen 17 sano oo dhibaatadaas ah laga bilaabo 15 May 1943 waxaa ku timid horseedayaashaas leegada dhimasho badan dad badan oo loo xiray dhaqaalo badan oo lagu bixiyey dadkii halkaas ku dhintay halkan waxaa nagala jooga ra'iisul wasaarihii hore maxamed cabdi yuusuf aabihiis yaa ku dhintay allah u naxariiste aniga naftigay aabahay 10 sano ku dhawaad buu u xirnaa oo waxaa la soo daayay 60kii markii xorriyadda la qaatay marka victimku waa badan yahay oo la sheegay dhibaatooyinkii la soo maray marka anigi maxamed cabdi yuusuf waxaan nahay dhashii Israel idinkuna waa tihiin waxay ahaayeen urur runtii hogaamiyey ururadii kale oo siyaasadeed ee waqooyi ka jiray ay ka mid ahaayeen USP NUF iyo SNL waxay ku guuleysteen xisbigii SYL ama maxaan ku raahdaa horseedkii SYL waxay ku guuleysteen ama dhaqdhaqaaqii waxay ku guuleysteen inay ka furtaan xafiisyo meelo badan oo dalka ka mid ah hadday noqoto waqooyi berbere aan ka soo qaado hargeysa burco meel kasta oo ay joogaan Soomaaliya xisbiyadaasaan sheegay ama ururadaasaan sheegay waxay qayb ka ahaayeen xoreynta dalka iyo qayb ka ahaayeen SYL waxaa tusaale u ahaa oo mar walba ay ka dhiganayeen tusaale dhaqdhaqaaqii gobolmidoonka ee gobolada waqooyi ka bilowday uu hogaaminayay allah u naxariistay sayid maxamed cabdullaahi xasan oo la dagaalamayay gumaysiga ingiriiska muddo 21 sano ah hadafka SYL muxuu ahaa hadafka SYL waqtiga dheer qaatay 17 sano qaatay wuxuu ahaa laba arrimood mideynta dadka Soomaaliyeed oo gumaysigu u isticmaalayay inay kala qaybsanaadaan uu kala qoqobo oo qabiilka ugu horeeyo waxa kale oo hadafkoodu ahaa inay xoreeyaan dalka macnaheedu waxay ahaayeen xornimo doon iyo midnimo doon wadada ay ku raadinayeen midnimadaas iyo xornimadaas ma ahayn qabiil maxaa yeelay qabiil waxa isticmaalay gumaysiga isticmaalay waxay ku raadinayeen mabaadiida ama afkaarta wadaniyadda iyo ku raadinayeen maxaa yeelay wadaniyaddu waxa weeye dal jaceyl weeye oo wax ka sareeya qabiil iyo qabyaalad iyo qof wax ka sareeya weeye waxay ku guuleysteen dadka inay mabaadiidaas wadaniyadda ah ay geliyaan ayna u dhintaan
ayna u halgamaan waxay ahayd taasoo lagu gaaray horumar la taaban karo dhanka kale qabyaaladda iyo wixii ummadda kala qaybinayay iyadana way ka fogaadeen oo qofkii lagu asteeyo ama qofkii lagu arko ka mid ma ahayn dhaqdhaqaaqa Israa'iilka dhalinyaradaas hadafkoodu waa gaareen hadafkoodu oo ahaa inay dalka xoreeyaan waa tan caawan u dabaaldegayno 26 Juun oo laga soo wareegtay 61 sano 1960kii oo gobolada waqooyi ay xorriyadoodii ka qaateen Ingiriiska iyo gobolada koonfureed oo iyaguna July 1 1960kii iyaduna ay ka qaadatay xorriyadoodii way ku guuleysteen hadafkoodii way ku guuleysteen waxay kaloo ku guuleysteen inay koonfur iyo waqooyi ay mideeyaan waa ku guuleysteen waxay ahaayeen runtii dad afkaartoodu ay aad u sarreyso qanciyey ummadda Soomaaliyeed inay midoobaan oo midnimadu ay ka xoog badan tahay wax walbaba waa isla garanay in dhalinyaradaas visionkoodu ama aragtidooda fog ay ahayd midnimo iyo xoreynta dalka keentay qarannimo saas darteed qarannimada waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo dowladnimo waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo horumar waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo nabadda in laga shaqeeyo sidoo kale waxaan kala ognahay qaybsanaanshaha iyo qabyaaladdu waa the opposite waa ka soo horjeedka wixii aan sheegay qabyaaladdu iyo kala qaybintu ummadda Soomaaliyeed waa hooyga qaran la'aanta waa hooyga colaadda waa hooyga dowlad la'aanta waa hooyga saboolka iyo faqriga waa hooyga sharaf darrada marka ugu dambaysana intaas markii aad gaarto shisheeyaa ku maamulanaya marka ilaa dad ma tihidi taas weeye waxa ay ka dagaalameen allaha u naxariistay 13 hormoodka ahaa ama horseed ku ahaa leegada jidkaas aniga aan sheegay oo xun oo dambe way ka leexdeen jidka waxay aadeen inay midnimada aadaan qarannimada raadiyaan dalkoodana ka xoreystaan dadka ku soo duulay oo raba ummadooda inay gumeeyaan haddaba su'aasha taalla waxay tahay dhalinyaradaas waa garanay oo waa aragnay visionkooda meeshuu gaarsanaa waana ka faa'iidnay xaqiiqatan maxaa yeelay jiilka aniga aan ugu yarahay uuna ugu weyn yahay maxamed cabdi yuusuf yaa wax ku bartay dowladnimo ku heleen magac iyo sharaf ku heleen haybad ayay ku heleen 30 sano yaan ku macaashin waxay tahay marka su'aasha dhalinyarada hadda joogta muxuu yahay visionkooda aragtidooda fog muxuu yahay 61 sano kadib muxuu yahay higsigooda waxa weeye dhalinyarada hadda joogta waa inay isweydiiyaan maxaa ay uga duwan yihiin dhalinyaradii hore oo dalkan midaysay oo xorriyadda keentay maxay uga duwan yihiin aniga waxay igu muuqataa aan ku horumaray dhalinyarada waa weydiiyey qof walba ha ka jawaabee aniga aan ka jawaabo waxay igu muuqataa waxaa ii muuqda rajo aad iyo aad u badan mustaqbal wanaagsan khaasatan dhalinyaradeenna yaa ii muuqda dhalinyarada maanta waxa weeye intaas waa fahamsan yihiin waxaana ku socda isbeddel maalinba maalinta ka dambaysa waxaa socda dhaqdhaqaaq iyo kacdoon weliba sanadihii ugu dambeeyey oo midnimo doona haba u badnaadaan dhalinyarada halkan fadhida qaarkood kuwa badanna ay magaaladan joogaan oo nooga yimid waqooyiga Soomaaliya oo runtii dhaqdhaqaaqa xoog leh wada sidii Soomaaliya loo mideen lahaa si dalkan uu horumar u gaaro waxaan arkay dhaqdhaqaaqo iyo kacdoon dhalinyaro
oo wadaniyad badan ay ku jirto oo maalinba maalinta ka dambaysa xoogsanaysa waxaa muuqda kacdoon oo wadaniyada oo inta badanba aan ognahay inta badan kacdoomada waxay ka bilowdaan gobolada waqooyi anaa idin sheegay sababta waxa weeye aan ammaano dadka waqooyiga Soomaaliya aan ammaano waa dad wadaniyiina horta waa dad wadaniyiina waa dad ay ku weyn tahay gobonimada oo jecel gobonimada jecel waa dad matali kara qabka Soomaaliyeed sidaas weeye meesha mar walbaba halganka Soomaaliya looga xoreynayo gumaysiga ay ka bilaabato oo tusaale waxa noo ah Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo 22 sano dagaalamayay maanta waxaa si xowli ah u socda marka ama waayahan si xowli u socda dhaqdhaqaaqyadaas midnimo doonka ah waxaan ku matali karaa inay leeyihiin halgankii aan naqaanay oo Israa'iilka inay leeyihiin wax u eg inay leeyihiin waxaan rajaynayaa inay xoogsadaan sida ummadda Soomaaliyeed loo mideeyo waxaa ii muuqda oo aan arkayo waayahan dambe hawwadeenno ururo ah oo midnimo doona oo qaarkood aan la kulmay waxay ii sheegeen mabaadiidooda iyo waxa gaarsiiyey inay ka yimaadaan waqooyi oo adduunka wareegaan oo magaalada Muqdisho ay yimaadaan oo ay ka shaqeeyaan midnimo waxaan weydiiyey maxay tahay faa'iidooyinka marka si aan u fiiriyo sida ay diib u yihiin waxay ii sheegeen arrin iska general ah guud ahaan iyo arrin aad iyo aad diib u ah oo aad iyo aad u hooseysa waxay yiraahdeen midnimadu waxay dhistaa qarannimada waxay yiraahdeen waa qortay oo waa nood gareeyay waxay yiraahdeen midnimadu waxay dhistaa dowladnimada waxay yiraahdeen midnimadu waa haybad iyo magac iyo sharaf midnimadu waxay keentaa nolol wanaagsan iyo dhaqaale iyo horumar degdeg ah oo cid walbaba ay ku soo dhiirato inay maal gashato maxaa yeelay dad iswata oo walaalo ah yaa loo yimaadaa wax lala qaybsadaa laakiin dad iscunaya looma imaan karo midnimadu waxay wadataa nabad iyo walaaltinimo iyo isjeceyl iyay wadataa midnimadu waxay keenaysaa haddii intaasaan helno oo dowlad iyo qaran iyo nabad iyo horumar aan helno waxay keenaysaa khayraadkeennii inaan raadsanno oo aan la soo baxno ilaan waxaan nahay dal qani ah iyo dad sabool ah dal qani ah iyo dad sabool ah ayaan nahay laakiin shuruudda ka horeysa waxay tahay midnimada in la helo intaas igama aysan tegine waxa ay siiyeen riboor qoran oo reference leh oo caddeynaya Soomaali waxay haysato hadday og tahay iyo haddaysan ogeyn oo dhalinyaradaas ee wada movementiga dhaqdhaqaaqa wada ay qof walba qofkii arkaan ay tusayaan ay leeyihiin waxaasaan haysanaa maxaana kala haysta aan isugu imaan weynay maxaan u heli weynay dowlad midaysan maxaan u heli weynay dal midaysan waxay ii keeneen marka xog ay soo aruuriyeen aan idinla wadaaga marka ii dulqaata xogtaasi waa ribooro la qoray waxaa ka mid ah ribooradaas la qoray hay-ad la yidhaahdo Geo Spectrum iyo British Petroleum iyo Shell Oil ay qoreen 2014 iyo 2015 in Soomaaliya ay leedahay shidaal aanan xad lahayn oo gaaraya tayadiisa iyo qiimihiisa gaaraya 5,000 oo bilyan
waa 5 trillion ma aha wax cirka laga keenay ma aha waa wax qoran oo hay-ado ajnabi ah oo research sameeyey oo survey sameeyey ay qoreen wey waxay yidhaahdeen annagoo 5,000 oo bilyan haysana ama 5 trillion haysana yaan wax naloo keenaa oo nala caawiya waxay iigu dareen report kale oo ay qoreen BBOE waxa weeye billions barrels of oil equivalent waxaa la qoray 2017 wuxuu sheegayaa natural gaska Soomaaliya ku jira oo kaydka ah inuu yahay 2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah intaas waa inta gudaha ku jirta oo aan u baahanahay dadyow kale inay noo yimaadaan oo wax nala wadaagaan laakiin waxa dhulka korkiisa saaran waxaa ka mid ah xoolahan dhaqanno ama livestock oo ay sheegeen UN report on export UN-ka report ay sameeyeen oo ah wax dhoofinta xoolaha oo ay sheegeen oo muujinaya report la qoray 2016 in xoolaheenu ay gaarayaan qiimahooda 2 bilyan oo dollar ogaada si organized ah uma xanaanino dad reemiya wata dad reemiga ah xitaa kuma noola xoolaha iyagaa dadku ku nool ee si cilmiyeysan xoolaha looma dhaqdo haddii xoolaha si cilmiyeysan loo dhaqdo macnaheedu intaan waa conservative waa tira cadad aad u yar wey intii aan soo sheego dhan waxa weeye waa tira conservative ah wey waa inta ugu yar waxaa soo haray kalluunka commercial fishing waxa weeye iyadana UN conventions of the law of the sea ay qoreen 2014 waxay sheegeen baddeena kheyraadkiisu inuu yahay 1 bilyan inay ku jirto waa meesha inta ugu hooseysa wey waxay kaloo ii keeneen oo ii sheegeen wiilashaas waqooyi ka yimid macdanta dalka ku jirta reportkaana waxaa qoray nuclear energy agency waxa weeye NEA yaa qoray 2016 waxaa ku jira uranium dalkeenna waxaa ku jira dahab waxaa ku jira silver ama qalin limestone diamond xitaa waa leenahay iyo tan diyaaradaha laga sameeyaa copper waa biraha iyo uranium qiimaha waxay sheegaysaa inay tahay 2 bilyan waa inta ugu yar weey iyada naftigeeda beeraheenu waxaa lagu qiyaasaa 3 milyan ilaa 8 milyan hectares oo dhul ah oo la beeran karo waxaan leenahay 2 webi oo inta badan aan go'in oo socda wax kastana dalkeena waa laga beertaa iyada naftigeeda waxay sheegeen oo ay muujiyeen reportkan la qoray 2015 iyo 2016 oo ay qoreen UN reports on export iyada nafteeda on agriculture waxa weeye 3 bilyan waa inta ugu yar tourismka dalxiiska lama hayo bacdama annagu aan isdilayno cid noo imaan karta ma laha saas darteed cid dalxiis kugu imaanaysa ma jirto laakiin waxaan leenahay badda ugu dheer yaan leenahay xeebta ugu fiican yaan leenahay oo meel walba resort laga dhigi karo yaan leenahay jasiirado ayaan leenahay waxaan leenahay badda waxay leegtahay ugu dheer Afrika markaan leeyahay waa 3,300 oo kilomitir weeye waxay lahaan kartaa ilaa 20 dekadood oo dekad walbaba wax laga dhoofiyo qaar shidaalka laga dhoofiyo qaar xoolaha laga dhoofiyo qaar logistics kaliya ah qaar ganacsiga caadiga ah nooc kastaba maxaa yeelay ilaahay wuxuuna siiyay logistics wuxuuna siiyay strategic place meel fiican iyo ilaahay nagu abuuray oo cid haysata ma laha
laba badood badda cas iyo badweynta hindiya waxaa mara ilaa 60,000 oo maraakiib yaa marta baddeenna oo haddii aan ka faa'iidaysan karno xeebaheenna ee maraakiibtaasi ay khasab tahay inay ku istaagaan ama biyaha ka qaataan ama ha ku nastaan maalmo dhalinyaradaas marka ii timid oo midnimo doonka ah oo wareegaysa waxay yidhaahdeen soomaali ma kala maaranto intaas oo ilaahayna waana siiye khayraad maxay tahay waxaana haysta marka xoogaa waxay wax ka sheegeen siyaasiyiinta wax ka sheegeen waa nagu fogaadeen waxay naga sheegeen halkan ku celin maayo laakiin wax fiican ma sheegin aan ku soo koobay waxay yidhahdeen siyaasiyiintu waa dad danahooda ka shaqeeya iyo guryahooda dana guud kama shaqeeyaan iyo mustaqbalka carruurteena kama shaqeeyaan taariikh kama shaqeeyaan mustaqbalka iyo masiirka dalkana kama shaqeeyaan waxaan ku yidhi war nimanyo ha nagu fogaanina wax noo reeba waxunbaa dhab ka ah arrintaas waxaanse idiin sheegi midnimadu sahal kuma timaado dhalinyarada waxaan leeyahay haddaad doonaysaan midnimo waa inaad kacdaan waa inaad istaagtaan annagu siyaasiyiin baan nahay haddaan dana kala duwan leenahay noo sheega oo noo imaada oo marmarka qaarkoodna khasba haddii kale 20 milyan waa gaaraynaaye wax yar baa naga soo haraya gaajaan ulaanaynahay iyo macaluul iyo sabool inta siyaasiyiintu ay kala hayaan dadka shacabkana waa dhimanayaan carruurteena mustaqbal ma yeelanayaan waxa ummadda ay ku kala maqan tahayna wax macno leh maaha waa wax yaroo la xallin karo dhalinyarada marka waxaan leeyahay hana sugine ee kaca sidii SYL u kaca oo dhaqaaqa aan ku noqdo mustaqbalku anigu waxaan aaminsanahay rajo fiican baa jirta dadkeennu waa dad wanaagsan oo dad qiimo leh weeye waxaan ilaahay ka baryayaa in rajadaas ilaahay noo rumeeyo yaan ilaahay ka baryayaa oo ah in midnimadeennii ay soo noqoto oo dadka Soomaaliyeed waqooyi koonfur waa la isu baahan yahay aan dib isugu soo noqonno maslaxadaha yararkaana laga tago والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته